BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efamyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana intiina awoodee haysata waxay naga dhaalacan karaan ciwaankeena bbcsomali.com. دور وناكسن دقيستيال سيداد ودنتهينبا وحان هي عبد الرساق حاج عطوش أفريقيا برنا ساعدو والله بدي ظهور نمو أو قوة إذا عاد قضب بدان إذن كوها يو وحا كمدا وركي ودن بي إيجيريدي وزير كي حالي اللي قلت توقتي مقالة مقدشو طب قبل الدقال الله با تنصر كله ما ليسنا يدلك أفغانستان oo hadda caasimada Kaabul yimid nin gacantiisa ku qoray kitaabka Qur'aanka Kariimka oo dhererkiisa lagu sheegay 700 mitir maamulka ahlu sunna wal jamaa waxay ku gacan sayreen madaxweynaha cusub ee Galmudug أحمد جوالي أنا waxaan ku ogaanay ganacsadaa inuu yahay intaas wax ka badan oo aan ku ogaameysi jirin ayakuna nama aqoonsana annakuna ma aqoonsanin barnaamijka waxaa soo saaray Xasan Ali Gelle balsamarka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Axmed Badar mahadsanid Cabdirasaaq Xaaji Catoosh aqalka boqortooyada Birmingham ee dalka Britain ayaa waxay ku dhawaaqeen in Prince Philip oo sayga boqorada dalkaasi uusan wax xilo u qaban doonin boqortooyada wixii ka dambeeya bisha August ee sanadkan bayaan ka soo baxay aqalka boqortooyada ay boqorada Queen Elizabeth waxa ay si buuxda u taageertay go'aanka saygeeda bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in Prince Philip uu inta ka horeysa bisha August uu qaban doono howlaha u qorsheysan balse wixii ka dambeeya bisha August uusan aqbali doonin wax casuumaad laakiin mararka qaar uu ka qayb gali doono xaflado kale Prince Philip ayaa waxa ay da'diisu galaysaa 96 sano bisha soo socota hogaamiye kooxeed karbacdaaga ee reer Afghanistan Gulbadiin Xikmatyaar ayaa gaaray caasimada Afghanistan ee Kabul markii ugu horeysay muddo 20 sano kadib heshiis nabadeed oo la saxiixday dowladda dalkaasi Masta Xikmatyaar ayaa waxa uu qayb ka ahaa kooxo dagaalogayaal ah oo loo arko in ay mas'uul ka ahaayeen burbur xoogan oo loo geystay caasimada Afghanistan ee Kabul horaantii sanadii 1990kii ciidamada Ciraaq ayaa waxay sheegeen in howlgallo cusub oo ka dhana kooxda la magac baxday dowladda Islaamiga ay ku qaadeen dhanka galbeed ee magaalada Mosul bandulayaasha hogaaminaya howlgalkani ayaa waxa ay sheegeen in ay isku ballaarinayaan dhanka waqooyi galbeed ee ay haystaan kooxaha nimitidiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka ayaa ugu baaqday xukuumadda Azerbaijan in ay baaritaan ku sameyso geerida nin ka tirsan mucaaradka oo wax ku qora baraha internetka Mahman Galandrov ayaa waxa la sheegay inuu isku dhaxdaldalay toddobaadkii soo dhaafnay xabsi ku yaala caasimada dalkaasi ee Baku ugu dambeyn ergada matalaysa kooxaha mucaaradka hubeysan ee Syria ayaa dib ugu laabtay wadahadalada ka dhacaya caasimada dalkaasi Kazakhstan ee Astana maalintii Arbacadii ay ahayd markii wadahadalada isaga baxeen wakiiladii ka socday mucaaradka iyaga oo dalbanayeen xukuumadda Syria ay joojiso duqeymaha ay ku hayso goobaha ay mucaaradka haystaan warkii dunida ayaa intaasi naga dhanaan dib idin ku celiyay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh iyo barnaamijka intiisa kale أحمد بدر aad baad u mahadsantahay duhur wanaagsan dhegeystayaal sidaad u dhantihiinba mar kale naxariistii jannaha ka waraabiya waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu dilay oo lagu toogtay wasiirka howlaha guud ee Soomaaliya Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaje geerida wasiirka oo si weyn loo hadal hayo ilaa maanta ayaa waxaa la sheegayaa inuu toogtay askari dowladda ka tirsan wararkii ugu dambeeyay waxaa la socdo hadda ila fadhiya Xasan Ali Gelle Catoosh wararka ugu dambeeya helayna waxay tahay maanta waxaa la qorsheynayay in wasiirka loo sameeyo aas qaran laakiin waxaa la sugayay madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ku maqnaa Itoobiya oo howl shaqo uu ku tagay wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in madaxweynaha uu Muqdisho soo gaaray meydkana lagu hayo masaajidka mid ah la doonay in lagu tukado salaadii janaasada kadibna la aaso madaxweynaha uu ka qayb galo wasiirka seed og tahay wuxuu ahaa ninkii ugu daada yaraa ee wasiirka noqda dowladda hore waxaa jirtay cabsi ah in kooxaha dowladda ku kacsan sida shabaabka oo kale inay mas'uuliyiinta Soomaalida ay dilaan laakiin hadda waxaa soo baxday wasiirku waxaa dilay askari ka tirsan kuwa dowladda inkastoo sida la sheegay shaki oo ahaa in baabuurkii uu watay baabuur kale oo mas'uul ka tirsan dowladda la socday uu ku soo dhawaaday uu toogashada ku dhintay
markaad eegto baraha bulshada iyo dhammaan dadka soomaalida aad ayay u hadalhayaan ra-iisul wasaaraha xalay ayuu ka hadlay wuu tacsiyeeyey madaxweynaha wuxuu dalbay in si deg deg a arrintaasi baaritaan loogu sameeyo oo lagu gungaaro arrintaasi iyo sida ay ku dhacday waxaa kasii daran xildhibaankan ama wasiirkan ilaah wasiir cabaas oo ay ninka ugu daadiyar wuxuu kusoo koray xerada caalamka ugu weyn ee qaxootiga ee dhadhaab halkaas ayaa meeshuu kusoo waxbartay markii uu baarlamaanka soo galayana dee nin wasiirah ayuu ka qaaday kursiga ka qaaday marka waa nin caan ayuu ka noqday laakiin qadarta ayaa inta ku dhamaatay aad baad u mahadsantahay xasan cali gelle waxa uu nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee geerida wasiir cabaas allah u naxariistay oo xalay muqdisho lagu toogtay waa hagaag aan facebooka eego sayid cismaan sheekh ibraahim booram uu jooga waa nin si weyn ugu taxanbarteena facebooka wuxuu yidhi wasiirka la toogtay macnaheedu waxa weeyaan dowladda laftirkeeda oo la toogtay oo la dilay kadibna xabaasha lagu aasay ciidanka wasiirka dilay ma badbaadiyeen ayuu yidhi madaxweynihi ra-iisul wasaareba asad kulac wuxuu joogaa gaalkacyo wuxuu yidhi dilka wasiir siraaja ee xalay muqdisho ka dhacay waxa uu ahaa mid xanuunjiyey qalbiyada soomaali badan gaar ahaan dhallinyarada oo uu matalayey waa hagaag halka aad weli nagala socotaan waa b b c barnaamijkii duhurnimo ayaan bartanka kaga jirnaa isla wararkii soomaaliya ayaan ku jirnaayo shalay magaalada cadaado waxaa lagu doortay madaxweyne cusub oo maamul goboleedka galmudug uu yeelanayo doorashadan oo ahayd mid loogu loolamay si weyn ayaa waxaa ku tartamay 3 musharax iyadoo aakhirkii ay guusha raacday madaxweynaha cusub ee galmudug axmed ducaale geele oo xaaf loo yaqaano haddaba doorashadaasi waxaa ka soo baxay waxaa qaadahay maamulka ahlu sunna ee gobolada dhexe sheekh maxamed shaakir oo ah madaxweynaha maamulka ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa b b c da uga warramay aragtidooda doorashadaasi wuxuu u warramay xasan cali geelle oo b b c da ka tirsan ninka aad magaciisa sheegtay axmed ducaale aniga waxaan ku ogaa nin ganacsada inuu yahay intaas wax ka badan oo aan ku hogaamaysi jirin anaku waxaan ka leenahay mar kastaba gobolada dhexe waxay u baahan yihiin midnimo waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin walaaltinimo la walaaleeyo waxay u baahan yihiin in midoobaan cadowgooda marka maadaama dowladii hore ay kala qoqobtay dowladii horena kala qoqobka ujeedadii ay ka leedaysa ku guulaysan waxaan leenaha anaku mar kastaba kala qoqobkii iyaan loo celinin hala mideeyo shacabka waxalla wixii wax tabanahaya ha laga tiro toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaad joogteen muqdisho waxaana soconayay dadaallo laydinku dhexdhexaadinayo idinka iyo galmudug iyadoo wax natiijaha aanay ka soo bixin ayaadna muqdisho ka soo tagteen sidee wax u dhaceen maamulka dowlad goboleedka gobolada dhexe oo anigu aan mas-uulka ka ahaa madaxdiisa waaweyn martiqaadba waxay ka heleen dowladda federaalka soomaaliya martiqaadkaas ayaana ajiibnay muqdishoaan ku tagnay waxaana ka wada hadlayna waxyaabaha annaka ka maamul ahaan iyo dowladda federaalka naga dhexeeya markii ayada aan ka hadalnana dowladda federaalka waxayna dhaheen arrinta dib baan uga hadlaynaa insha allahu alkariim laakiin waxaan rabnaa gobolada dhexe arrimaheeda inaan galno oo xal aan u helno ay ku midoobaan cadowgoodana ay iska kaashadaan al-shabaab marka waan ka aqbalnay in maamul loo midaysan yahay oo ka wada dhexeeya dadkii deegaamada dhan iyo isugu yimaado oo lagu midoobo in la yegleero waa ka aqbalnay arrimaha marka caqabada unbaa qabsaday caqabadahaas ayay la soo waayeen caqabadaha qabsaday maxay ahaayeen caqabaha qabsaday waxaa ka mid ahaa dadkii markii horeetaba kala qoqobay oo danaha gaarkaa ka lahaa unbaan weli danahoodii u dhammaanin marka si danahoodii ugu dhammaadaan unbay waxay u sacyinahayeen in ay danahooda dhammaystaan annaguna waxaan aad iyo aada ugu sacyinaynay shacabka gobolada dhexe inay midoobaan waxalla wixii wax tirsanahaya waxay tirsanahayaan laga qanciyo waxay u sinan yihiin ay wada samaystaan maamulka galmudug ee fadhigiisu hadda yahay cadaado iyo idinka waxa wada hadal ah oo muqdisho idinku dhex maray ama wax dhexdhexaadina ma jirin marka dowladda federaalka waa sheegeen in ay annaka ka maamul ahaan iyo ay iska kaana horkeenahayaan qoladii cadaado mana aysa suurta gelin dowladda federaalka ma aysa iska kaana horkeenin marka wax wada hadal ah oo ay la isugu yimid oo labadii dhinacood dowladda ay sheegtay isugu yimaadeen maba jirinba hadda magaalada cadaado waxaa lagu doortay madaxweyne galmudug marka idinka maxaa idin qorshaysaan maxaad si ka samaynaysaan labadii ceeriinka isku dara weyda biseylka kuma wada cunto muqdisho dowladda federaalka ah isagu kaana yeertay marka aan wixii isku darno oo meesha waxa ka jiray xagga ay ka sheegtay dowladda federaalka ahi in uu ka jira maamul annakuna maamulan isu aqoonsana iyakuna nama aqoonsana annakuna ma aqoonsanin
waxaan nidhi aan wax wada aasaasano aasaas aan ka wada bilowno waxaan kaloo nidhi labada baarlamaan ha laysku daro aan wada aqoonsano wax la aqoonsan yahay si ay u dhalaan intaasaan anaku soo jeedin marka qolada waxaad doonaysa inay boobto sidii hore wax u boodeen unbaa maalan ba yani arrimahaas fashilisay maahane wax kale kuma fashilmin sheekh maxamed shaakir madaxweynaha maamulka ahlu sunna oo b b c da u warramaya ayuu kaasi ahaa aan facebooka mar kale ku noqdo sayid cusmaan sheekh wuxuu joogaa boorame wuxuu yidhi ahlu sunna way ku qaldan yihiin inay diidaan doorashada madaxweynaha galmudug ahlu sunna ha ogaadaan in waddanka dowlad uu leeyahay oo laga baxay wakhtigii qabqablayaasha dagaalka ay awoodda dalka xoogga ku haysteen ayaala maxamed wuxuu yidhi asna madaxweynaha galmudug ee shalay la doortay ee ahlu sunna waljamaaca ay ku gacan saydhay waa in xal loo helaa haddii kale waxaa abuurmi doona jahwareer iyo qalalaase b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa hagaag dhegaystayaal qodobada soo socda waxaa ka mid ah nin kitaabka qur'aanka kariimka gacantiisa ku qoray balse haatan dalka afghanistan qabqable dagaal hore oo dalka afghanistan ka tirsanaan jiray kooxihii ku dagaalamay ayaa hadda waxaa lagu soo warramayaa inuu dowladda la heshiiyey oo caasimadda kaabuul uu tagay wadahadlo nabadeed oo dowladda iyo ninkan dhexmaray ayay arrintani ku timid ninkan isaga ayaa muddo 20 sano ku dhow dhuumaalaysanaya ayaa la yidhi sekundara kermani ayaa warkan ka soo diray waatan faadumo macalin abuukar oo soo jeedisa ninkana mar lagu magacaabi jiray dilaaga kaabuul gulbudiin hegmadiyaar waxa uu ka mid ahaa hogaamiyayaasha mujaahidiinta ugu awooda badan ee la dagaalamay midoogii sofiyeetka afghanistan kadib markii ay dalka qabsadeen ciidamo maraykanku uu hogaaminayay kooxdiisa xisbul islaami waxay la dagaalameen xoogagii reer galbeedka ahaa inkastoo aysan ahayn kuwo khatar badan u leh sida ururka taalibaan sanadkii hore wuxuu heshiis nabadeed la saxiixday dowladda afghanistan waxaa jira rajooyin ku aadan soo laabashadiisa inay wadada u xaari doonto wadaxaajoodyo lala galo taalibaan balse cambaareyn loo soo jeediyey ayaa lagu sheegay inuu lumiye saameyntii uu beri ku lahaa islamarkaana uu kasii dari karo xasaradaha siyaasadeed iyo kuwa qowmiyadeed ee dalkaasi ka jira faadumo macalin abuukar aad baad u mahadsan tahay ma og tahay in b b c aad ka dhagaysan karto taleefanka gurigaaga ama kan gacanta haddii uu kuu furan yahay waa nambar maraykan ah laakiin haddii aad yurub ama soomaaliya ama meel kale oo caalamka aad joogtid wali waad dhegaysan kartaa haddii ay lacag la'aan kuu tahay wicitaanka maraykanka si aad u dhegaysato barnaamijyada b b c waxaad wacaysaa taleefanka nambarkiisu yahay ebereber 17 aan ku celiyo ebereber 17 ka dhegayso barnaamijyada b b c teleefonkaaga meel walbo aad dunida ka joogtid waa hagaag isla wararkii afrika ayaan ku jirnaayo waxaa si aada hoos ugu dhacay qarashaadkii iyo miisaaniyaddii lagu bixin jiray militariga dalalka qaaradda afrika 2 sano ee lasoo dhaafay marka loo barbardhigo 12 sano ee ka horreeyey warbixin cusub oo uu soo saaray macadka caalamiga ee cilmi baarista nabadda ee fadhigiisu yahay stockholm ayaa muujinaysa in xilliga qarashaadka lagu bixiyo gaashaandhigga guud ahaan caalamka uu gaadhay 1.6 trilyan oo dollar warbixin wariyaha b b c da arrimaha ammaanka Tommy Oladipo uu ka diyaariyay arrintan waxaa inoo hayo soo akhriyey xasan cali geelo hadda ila fadhiya catash warbixintan waxay muujinaysaa xiriirka ka dhexeeya dhimista kharashaadka ku baxaya militariga iyo arrimaha gaashaandhigga iyo hoos u dhaca sicirka saliidda caalamka iyo sida waliba kale dhibaatooyinka dhaqaale ee caalamka ka jira warbixintu waxa ay tusaale soo qaatay qaaradda afrika marka laga hadlayo labada wadan ee dhoofiya saliidda ee kala ah angola iyo sudaanta koonfureed waxaa la leeyahay sudaanta koonfureed sanadkii 2016 waxay kharashkeeda hoos u dhintay kala bar intii ku bixi jirtay sidoo kale angola kharashka waa ay dhintay laakiin waxaa leeyahay wadamadan inkastoo afrika oo dhan kharashkaasi hoos uga dhigay haddana kobacooda marka la fiiriyo dhaqaale iyo kharashka militariga ku baxaya weli waxaa badan kharashkii militariga ku baxayay xasana marka warbixintan iyo warkan soo baxay ma la sheegay sababta keentay arrintani waxa ugu weyn oo la sheegayo iyo waxa ay tahay saliidda iyo dhibaatada dhaqaale ee jirta tusaale haddii aan soo qaadano hadda sudaanta koonfureed ku hata colaad ayaa ka socoto maadaama colaad socoto waxaa la filayay in la leeyahay in hala kordhiyo
kharashkii militariga ku baxay laakiin taa ma aysan dhicin ayaa laleeyahay waxaa lasoo hadal qaaday dalkani Kenya oo kale maadaama uu ku jiro dagaal ka dhan al-shabaab oo gobolka geeska Afrika iyo axsaarada ka jirta waxa leeyahay isaga waa uu ka wacday arintaas oo qarashaadka uu ku bixiyo militariga waa uu kordhiyay wada ogtahay dhawaan Mareykanka ay heshiis la galeen oo waxa la soo gadanayay helicopter iyo hub iyo qalab isgaarsiin oo la doonayo in cunida militariga lagu xoojiyo oo kor u qaado laakiin waxa muuqata qaarada oo dhan markii la fiiriyo in kharashaadkii hore loo bixin jiray oo lagu bixin jiray arrimaha gaashaandhigga inuu hoos u dhac weyn ku yimid aad baad u mahadsantahay xasan cali gelle wuxuu soo akhriyey warbixintii Tome Olodipo waa hagaag aan Soomaaliya dib ugu noqono roobab mihigaan ah oo ka daay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sababay in webiga Shabeelle oo ku dhawaad 5 bilood qalalnaa uu ku fatahay deegaano ka tirsan gobolka webiga oo biyo dhigay beero ay ku abuurnaayeen dalagyo kala duwan ay bishii Maarso la beertay ayaa hadda lagu soo waramaya in qasaarahaasi ay beeraleydu ka cabanayaan Cumar Maxamed Maxaad oo beertiisu ay fatahaad u saameysay isla markaana gudoomiye ku-xigeenka tuulada Buur Bishaaro oo jawhar 10 kilomitir u jirta ayaa wuxuu u waramay BBC-da saamaynta oo macnaha ugu weynayay macnaha magaciisa bal oo macnaha jirib gaarayo beero oo macnaha magaciisa oo sisil ku taalo galay ku taalo digir ku taalo kasal beereedkaas waxaan saarnay motoraan saarnay oo shiraalkiisa xataa diin aan kusoo qaadanay marka anagoo roobka welwel lagu haayo ama xarad idinka goysaasteedo ay bihii webiga naga galeen waa imisa beeraha webiga uu ku fatahay beeraha webiga uu ku fatahay inta hadda macnaha magaciisa tuuladayna aan ogahay adiga 30 beerood waa leeyihiin jaafay beero ay leedahay waa qaati waraay waa geli 3 tuulo beerahoodii uu ku fatahay mugarad marka haddii aad beeraley tihiin ma filaysayn in tan oo kale ay idinku dhacdo arrintan inay dhacdo webiga uu fataho ma filaynin adeertaan xataa beeraha webiga maahane hoos ugu dhacay webiga hoos ugu dhacay mitriga bar ayuu hoos u dhacay waan garta ka hor inta roobabkan ay diin xaalkiina sidee buu ahaa intii roobabkan ay diin xaalkayna waa iska fiicnaa shaqooyin oo goosgoos aan helahay maanta hadduu roobka uu do biri camal hadduu oraxa u keeno shaqooyin aan helahay adiga oo goosgoos oo saas u badnaan aan heli jirin marka roobka hadduu bilaawday shaqooyinkii ma jiraan beerihii laga shaqaynaayo ninkii yar xoogaa wax ku dhaama ama khalkhaala wax ku doono karo oo macnaha jilaan laga falaayo kaali jilaan laga soo xusho u dhahay beertii ala ku gaali maxaa macnaha oo laga shaqaysaa waa la iskor fadhiyaaday marka arrintan mid dhacda mar walba marka roobabka guga ay da-aan miya oo webiga uu ku fataho beeraha maya mar walba oo joogto oo arrintan oo roobabka saan oo loo geyn jirin ma dhici jirin saddex fasal camal waa kuu toogsay nolomaameedka waa iska ficeen beerta oo ku bixaysa adiga ama laba fasal kadib roobabka miisaanka culculus ay yimaadaan waan garta marka beeraleydiina sooma wanaagsanayn in maadaama aad ogeedeen in roobabka guga ay da-ayaan inaad kasii tabaabashaysataan oo meelaha furan ee webiga aad iska xirtaan waga sii tabaabashaysiino waa fiicneed laakiin fakti hore xawliga oo ku yimid ayuu ah macnaa xawli oo culusoodo joogii buurka macnaa ka sareeyo xawli oo iyo meelaha liidan oo gaagaaban oo macnaha uu kasoo daaqo waan garta hadda waxaad ii sheegtay inaad iska xirteen halka webiga uu ka fatahay kadib maxaa idiin qorshaysan hadda haddii maadaama biyaha aan iska xirnay oon biyaha iska xirnay waxaa noo qorshaysan kullay suugnaay oo noo xaalo ina macnaha aan iska joogno meesha biyaha ini waaye beerta hadday soo baxdo inaa haddana geeni iyo waxbay aan raraadsano oon abuur aan banaanka soo bilaawno haddana Cumar Maxamed Maxaad oo ah beeraley Soomaaliya joogo BBC-da u waramayay waxaad dhageysta haddaad maqli jirteen nin buu qoray maanta waxaan idin hayaa nin kitaabka qur'aanka kariimka gacantiisa ku qoray yaan idinka diline raagaha sama ila fadhiyo haynoo qaada dhigo catash ninkan waa nin reer Masar ah waxbarashada iskuulkana waxaa la sheegay inuu dhexda uu uga tegey waxa uu hadda rajeynayaa inuu taariikh sameeyo kadib markii uu 3 sano qorayay kitaab quraan ah oo uu rumaysan yahay inuu yahay kan ugu weyn adduunka oo dhan ninkan lagu magacaabo Sacad ayaa waxa uu si qurux badan u qoray kitaabkaasi gacantiisa ayuuna ku qoray dhirkiisana kitaabkaasi wuxuu dhan yahay ayaa la sheegay 700 oo mitir waxa uu ku nool yahay dalka Masar gaar ahaan waqooyiga magaalada Qaahira waxa uu rajeynayaa in uu kitaabkan uu qoray uu geli doono diiwaanka caalamiga ah ee Guinness World Records mucjisooyinka lagu qoro aad baad u mahadsantihiin sheekadaas oo maqal iyo muuqaal ah oo fiican website-keena ayaad ka arki kartaan haatanna baafintii
baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Siciid Xasan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali. Cabdiqaadir mahadsanid caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay kaafiye faarax muuse oo joogta Puntland. waxa ay baafinaysaa Faadimo Faarax Muuse oo markii ugu hordanbeysay lagu sheegay dalka Sacuudiga sanadkii 1984. haddaba haddii ayna maqlayso Faadimo Faarax Muuse ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo kaafiye Faarax Muuse iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Puntland ama telefoonka nambarkiisu yahay eber 2529 eber 6 cali axmed cali oo joogo xundur waxa uu baafinayaa cabdi maxamed cali waxa ugu hordanbeysay isagoo ku sugan dalka Yemen 2008. haddaba haddii uu maqlayo cabdi maxamed cali ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cali maxamed cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xundur. cabdicasiis xasan ismaaciil oo jooga Puntland waxa uu baafinayaa Fartuun cabdicasiis xasan oo markii ugu hordanbeysay lagu sheegay dalka Yemen sanadkii 2014. haddaba haddii ayna maqlayso Fartuun cabdicasiis xasan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cabdicasiis xasan ismaaciil iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Puntland ama telefoonka nambarkiisu yahay eber 2529 eber 6 caasho cilmi isaaq oo joogto xundur waxay baafinaysaa nasra cilmi isaaq waxa ugu wardanbeysay iyadoo ku sugan dalka Suudaan 2002. haddaba haddii ayna maqlayso nasro ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo caasho cilmi isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xudur. salaada nuur cilmi oo joogta Garowana waxa ay baafinaysaa caasho nuur cilmi oo markii ugu hordanbeysay lagu sheegay dalka Sacuudiga sanadkii 1978. haddaba haddii ayna maqlayso caasho nuur cilmi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo salaada nuur cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Garowe ama telefoonka nambarkiisu yahay eber 2529 eber 7 yuusuf xasan macalin oo jooga xundur waxa uu baafinayaa dadka kale ah Zahra Yuusuf Xasan iyo Xaawo Ibraahim Cabdi waxa ugu hordanbeysay iyagoo ku sugan dalka Kenya 1992. haddaba haddii ayna maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Yuusuf Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xundur. aadan maxamed faarax oo jooga Garowana waxa uu baafinayaa Faadimo aadan maxamed oo markii ugu hordanbeysay lagu sheegay dalka Itoobiya sanadkii 2015. haddaba haddii ayna maqlayso Faadimo aadan maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo aadan maxamed faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Garowe ama telefoonka nambarkiisu yahay eber 2529 eber 7 faadimo aadan cabdi oo joogto xundur waxay baafinaysaa luul aadan maxamed waxa ugu hordanbeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen 2012. haddaba haddii ayna maqlayso luul ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo faadimo aadan cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xundur. cabdiqaadir maxamed faarax oo jooga Garowana waxa uu baafinayaa kaafiye cabdiqaadir maxamed oo markii ugu hordanbeysay lagu sheegay dalka Suuriya sanadkii 2011. haddaba haddii ayna maqlayso kaafiye cabdiqaadir maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cabdiqaadir maxamed faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe ama telefoonka nambarkiisu yahay eber 2529 eber 7 Aways Nuur Isaaq oo jooga xundur waxa uu baafinayaa Aamina Nuur Isaaq waxa ugu hordanbeysay iyadoo ku sugan magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari 2012. haddaba haddii ayna maqlayso Aamina ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Aways Nuur Isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xundur. cabdullaahi cumar siciid oo jooga Garowana waxa uu baafinayaa Fartuun cabdullaahi cumar oo markii ugu hordanbeysay lagu sheegay dalka Belgium sanadkii 2012. haddaba haddii ayna maqlayso Fartuun cabdullaahi cumar ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cabdullaahi cumar siciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Garowe ama telefoonka nambarkiisu yahay eber 2529 eber 7 walki cabdi aadan oo joogto xundur waxay baafinaysaa Fartuun cabdi aadan waxa ugu hordanbeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya 2012. haddaba haddii ayna maqlayso Fartuun ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo walki cabdi aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Xudur.
yuusuf cali axmed oo jooga garawana waxa uu baafinayaa haaruun cali axmed oo markii ugu hordambeysay lagu sheegay dalka yemen sanadkii 1978. haddaba haddayuna maqlaya haaruun cali axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo yuusuf cali axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada garowe ama taleefonka nambarkiisu uu yahay eber 2529 eber 37 cabdi maxamed cali oo joogo xundur waxa uu baafinayaa nuur maxamed cali waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan magaalada mandheero 2010. haddaba haddayna maqlayso luul amabay jirto cid garanaysa fadlan markeeda hala gaarsiiyo cabdi maxamed cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xundur. siciid geedi cawad oo jooga garawana waxa uu baafinayaa muuse siciid geedi oo markii ugu hordambeysay lagu sheegay dalka itoobiya sanadkii 1978. haddaba haddii uuna maqlayo muuse siciid geedi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo siciid geedi cawad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe ama taleefonka nambarkiisu yahay eber 2529 eber 77 walaal maxamed khayre oo joogto xundur waxay baafinaysaa samson maxamed khayre waxa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska 2001. haddaba haddii ayna maqlayso zamzam amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo aamina maxamed khayre iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xundur. maxamed axmed cali oo jooga garawana waxa uu baafinayaa cabdiwahaab maxamed axmed oo markii ugu hordambeysay lagu sheegay dalka maraykanka sanadkii 1981. haddaba haddii uuna maqlayo cabdiwahaab maxamed axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed axmed cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada garowe ama taleefonka nambarkiisu yahay eber 2529 eber 76 eber. saada cabdulaahi cabdi oo joogto wisil waxay baafinaysaa xaliima maxamed muuse waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalka kenya 2012. haddaba haddii ayna maqlayso xaliima amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sawda cabdulaahi cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. xuseen macalin maxamuud oo jooga garawana waxa uu baafinayaa xabiibo macalin maxamuud oo markii ugu hordambeysay lagu sheegay magaalada jigjiga sanadkii 2001. haddaba haddii ayna maqlayso xabiibo macalin maxamuud amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xuseen macalin maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe ama taleefonka nambarkiisu yahay eber 2529 eber 77 eber 9. sucaad maxamed cabdi oo joogto burtinle waxay baafinaysaa tawxiid maxamed cabdi waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka liibiya 2014. haddaba haddii uuna maqlayo tawxiid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan markiisa hala gaarsiiyo sucaad maxamed cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada burtinle ama taleefonka lambarkiisu uu yahay eber 2529 eber 7943. kaltuun xasan cabdiraxmaan oo joogta garawana waxa ay baafinaysaa siciid xasan cabdiraxmaan oo markii ugu hordambeysay lagu sheegay magaalada nairobi sanadkii 1991. haddaba haddii uuna maqlayo siciid xasan cabdiraxmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo kaltuun xasan cabdiraxmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe ama taleefonka nambarkiisu uu yahay eber 2529 eber 7243. aadan ciidruus cali oo joogo isla burtinle waxa uu baafinayaa asad ciidruus cali waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka suuriya 1981. haddaba haddii uuna maqlayo asad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo aadan ciidruus cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burtinle ama taleefonka lambarkiisu uu yahay eber 2529 eber 6 suufi macalin cabdi oo jooga burtinlena waxa uu baafinayaa maryan macalin cabdi oo markii ugu hordambeysay lagu sheegay dalka itoobiya. haddaba haddii ayna maqlayso maryan macalin cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo suufi macalin cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burtinle ama taleefonka nambarkiisu yahay eber 2529 eber 67 baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay farxiya jaamac oo joogto burtinle waxay baafinaysaa cabdishakuur cali faarax waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka sacuudiga 1976. haddaba haddii uuna maqlayo cabdishakuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan markiisa hala gaarsiiyo farxiya jaamac yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burtinle ama taleefonka lambarkiisu uu yahay eber 2529 eber 6977. baafintina maanta waa naga intaas.
aad bay u mahadsan yihiin asxaabteennii baafinta waa hagaag caawa ciyaaraa jira Celta Vigo iyo Manchester United oo ku tartamaya championka Yurub ayaa is arkaya haddaan idin xasuusiyo intiina awoodda website-keena bbcsomali.com sheekooyinka aan soo gelinay waxaa ka mid ah geerida wasiir Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaje oo xalay la toogtay barnaamijka intaasaan ku soo qatimayaa waxaan noo ballanaa galabta 5 galabnimo hadduu Allah awoodda la ogolaado tan iyo kulankaasi kan xiga waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo